بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore aad iyo aad baan xamso ku salaamay adiga iyo hon cable tv akhyaarta kalaba runhaan xaaladda amaanka ee dalku marayo runtii aad bay u liidataa mar hadii ay noqotay axsaabtii mucaaradka in runhaantii la farageliyo oo gacan loola tago runhaantii waa arrin aad iyo aad u xun khalkhal amnina runhaantii abuuri doonta waxa jirta niman siyaasiyiin runhaantii oo la moodiyo doorasho inay u socdaan runhaantii aan doorasho u socon doonaya inay dalkan dagaalo sokeeye iyo muxuu ahaayay barbalaamiyo dalka inay geliyaan runhaantii ummadda ilaahay iyo ummadda islaamka iyo xayawaanaadku raxmadu markay daato dhawaqa muxuu ahaayay dhibcaha roobkay ku raaxaystaan laakiin waxa jirta rag ku raaxaysanaya dhawaqa rasaasta sokeeyaha doonaya dalkan inay qallaasa sokeeyo runhaantii geliyaan niman waxa weeyaan ku faa'iido ku macaasha muxuu marka dagaalka sokeeyo dhacaan oo mar ay dalka gudihiisa ay hanti shacab guryo iyo beeraba inay ku boobaan marna dalka dibadiisa jaaliyada dalka dibadiisa ku nool oranaya muxuu ahaayay noo soo gurmaday oo dalka muxuu u soo gurmaday oo beeshii laga saar magaaladii oo dhaqaale ku urursanaya hadhow toolana dalkan wax ay u soo jiidayaan iyo waxay gelinayaan toona runhaantii aan jirin ragaasaa jira insha Allah meel walbana way ku jiraan xisbi walba way leeyihiin beel walba oo Soomaaliland kamidana way leeyihiin marka dadkaas in meel looga soo wada jeesto oo aqoon-yahanadu waqtigii qalinka weeyaan maanta xamso waqtigii qalinka ayaa shaqeynay maaha waqtigii qoriga waanu mahadcelinaya rag aqoon-yahanada dalka ku soo qulqulaya axsaabta qaranka ku kala biiraya ee ugu dambeeyay imaka aqoon-yahan Maxamed maxay bile Mr Bile ugu dambeeyay kulmiye ku biiray waxaan rajaynaynaa inuu kulmiye wax badan oo runhaantii ka beli doono waxaan aaminsanahay dalkan ay u soo kaceen dhalinyar aan ku xidhneen qabqablayaal dagaal iyo hogaamiye kooxeedo aan ku xidhneen inay dalkan u soo kaceen dalkan waqtigii qalinka la gaaray oo qalinka loo shaqeyn doono Ilaahay idinkii xogagal runhaantii ayaan u ahay wargeyska Star Ben cad oon jirin buu runhaantii qoray in badanna waanu ka hadalnay warbaahinta waanu ka sheegnay waxalaaliyo wixii qodobadii iyo meelihii aan marnoo dhan iyo maalin walba kulankii aan yeelanoo dhan runhaantii waan baahinay wargeyska Star wuxuu soo baxay maalintii 12 bishan ayuu runhaantii soo baxay wargeysku saddex beenood buu sheegay mar waa marka koobaad wuxuu yiri 20 bisha ay Umar Cabdirashiid ku kulmeen magaalada Nairobi marna sawir photoshop runhaantii laga wada dharagsanay wuxuu yahay ayuu sheegay marna wuxuu qoray uu sheegay inuu yiri madaxweyne Siiraayo ayaa u sharaxan xisbiga kulmiye runhaantii taasoo been cada oo cid walbaaba ay ka dharagsan tahay inay tahay marka runhaantii dad badan baa faafinaya xisbigii kulmiye odayaashii waaweynaa ayaaba runhaantii faafinaya niman tujaara oo xisbiga kulmiye taageersan oo waliba nin kaliyaata ah oo aad iyo aad maanta dagaal xun kula jira axsaabta qaranka inuu burburiyo ninkaas ka dambeeyay anigu aan aaminsanahay inuu ka dambeeyo runhaantii ninka waqtigiisina way iska dhamaatay oo iska soo gabagabowday waayo waxa la ogaaday runhaantii 70 dawladood inuu maandooriyaal u tahriibiyo oo ku shaqeyso maandooriyaal inuu tahriibiyo waxa xoga rasmi ah runhaantii marka soo baxaya oo ilaa bishii ugu dambeysay laamaha ammaanka iyo Interpolka iyo ammaanka dawladaha Khaliijka Sacuudiga iyo Imaaraadkuba ay ka shaqeynayaan sidii ay ninkaas ay ugu hortagleen sababtoo ah wuxuu ninkaas shidaal iyo petrol ka iibiyaa xoothiyiinta isagoo gacan saar la leh runhaantii Iran dhaqaalahan wareerka ah ee uu axsaabta qaranka u gelinayo inuu ku baabiyo meeshuu ka geenayaa waxa weeyaan shidaalka uu ka iibiyo xoothiyiinta ee la wada og yahay maanta caalamul carab ay runhaantii og yihiin maalmo dhow insha Allah ta'ala talaabo laga qaadi doono annaguna malaf iyo fayl baan runhaantii ka diyaarinay la wadaagi doono alaamaha ammaanka ee dawladahaas iyo Interpolka ba aan u gudbin doona insha Allah ta'ala shidaal iyo hubba inay u tahriibiyaan ay doonayaan Soomaaliland wuxuu doonayaa ninkaas jacayl oo caashaqay xisbiga kulmiye maanta midna maaha wuxuu doonayaa in uu dalkan maandooriyaal iyo mukhadaraad iyo muxuu ahaayay base geeska Afrika maandooriyaasha uu ka faafiyo inuu ka dhigto base caalamiya oo caalamka ugu kala daro sida imka la wada ogyahay 70 dawladood buu ayuu u tahriibiyaa muxuu ahaayay maandooriyaasha marka insha Allah ta'ala waa laga hortagi doona anigoo xogaya xiriirka carabta uma ogolaan doona insha Allah ta'ala in dawladaha carabta dalkayga lagaga duulo biidni Allah ta'ala gacan bira lagu qaban doona biidni Allah ta'ala